بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii wararka maanta qodobada aan idin kugu haynana waxa kamid ah xoutiyiinta oo weerar loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday dekada magaalada Al-Makha oo ay gacanta ku hayso dawladda caalamku aqoonsan yahay xoogagga reer Yemen ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay weerareen xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco ee magaalada Jizan ee waddanka Sacuudiga. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran oo sheegaya inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa cadawgooda isla markaasna haddii la soo weeraro jawaabtoodu ay noqon doonto mid adag. wasiirka arrimaha dibadda Iran oo sheegay in dalkiisa iyo Mareykanka ay isdhaafsadeen fariimo iyadoo loo marayo dhexdhexaadiyaal. Netanyahu oo si adag uga hor yimid qorshihii Trump ee Gaza isagoo si cad u sheegaya in uu diyaar u yahay inuu wajaho madaxweynaha Mareykanka. Taangiyada ciidamada Israa'iil oo gudaha u galay magaalada Quneitra ee dalka Suuriya. dhammaan qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan iyo wixii waraacay degdega ee soo kordhaynteenu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. nimca cabdikariim timacade oo barnaamijka ila talantaalinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka caalamka kuwada safka hore ku jira. nimca mahadsanid mawlid. maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Yemen iyo Sacuudiga. xoogagga Xuutiyiinta reer Yemen ee loo yaqaan Ansaar Allah ayaa goor dhaweyd weerar culus oo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday waxay ku qaadeen digada magaalada Makha ee gobolka ee galbeedka waddanka Yemen sida ay sheegeen warbaahinta Yemen Today TV iyo wakaalada wararka Sabah ee Yemen laga leeyahay. goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qarax oo xooggan laga maqlay magaalada Al-Makha xilli weerarka uu socday. warka ayaana waxaa intaasi ku darayaa in ka badan 20 diyaaradaha droniska lagu weeraray dekada halka gantaal lagu bartilmaameedsaday xarun tababar oo ku taala deegaanka Qatal ee dalkaasi Yemen. ciidamada dawladda Yemen ayaa dhankooda sheegay in difaacyada ciidamadu ay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradaha droniska ee dulhehaabayay magaalada. Xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in ay beegsadeen deegaanada Jabal al-Nar iyo jasiiradda Zakhar ee ku dhow magaalada Al-Makha. maamulaha dekadaasi magaalada ku taal ayaa waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah shaqaalaha dekada ay ku dhaawacmeen weerarka balse ma aanu sheegin tiradooda. waxaa sidoo kale uu sheegay in drones lagu weeraray guryaha qaar ka mid ah shaqaalaha dekada. geesta kalena hafayeenka militariga ee kooxda Xuutiyiinta Janaal Yaxya Sariic ayaa waxa uu xaqiijiyay weerarka isagoo sheegay inay gantaalo kuwa balaastig ah iyo diyaarado drones ku bartilmaameedsadeen ciidamo iyo baqaaro hub lagu kaydiyo. dekada Al-Makha ayaa leh muhiimad istiraatiiji ah maadaama ay ku dhowdahay marinbiyoodka Bab-el-Mandab oo ka mid ah marinada ganacsiga ee badda ee ugu muhiimsan dunida. goor sii horreysay oo maanta ah Xuutiyiinta ayaa sheegay inay diyaarad aan duuliye lahayn ku weerareen warshadda sifaynta shidaalka ee ay leedahay shirkadda Sacuudiga ee Aramco ee ku taal magaalada Jizan ee koonfurta galbeed ee dalka Sacuudiga. afhayeenka militariga Xuutiyiinta General Yaxya Sariic ayaa daboolka ka qaaday in weerarku si sax ah u haleelay bartilmaameedkiisii isagoo ku tilmaamay jawaab ay ka bixiyeen diyaaradaha Sacuudiga oo sida uu sheegay soo galay hawada gobolada Sacda iyo sidoo kale Hajja.
wasaaradda tamarta ee Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijisay in dab uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha sifaynta shidaalka ee shirkadda Aramco ee Jizan isla markaana in la damiyay ayaa la xaqiijiyay waxaana la sheegay in wax khasaare ah uusan ka dhalanin dabkaasi. Wasaaraddu ma aysan sheegin sababta dabka inuu ka kaco ka dambeysay. weerarkan ayaana noqonaya midkii labaad muddo ku dhow 2 toddobaad ah oo xoutiyiintu ay sheegtaan inay ku bartilmaameedsadeen xarumaha Aramco ee Jizan kadib weerar ay sheegeen inay fuliyeen 25kii bishii hore ee Julaay ee weerartay. xiisada ka taagan badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa sii xoogeysatay tan iyo bilowgii bishii hore ee Julaay iyadoo xoutiyiintuna ay ku dhawaaqeen inay ballaariyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta la xiriirinayo boqortooyada Sacuudiga. dhinaca kale Sacuudiga ayaa bishii hore waxa uu sheegay in mid ka mid ah maraakiibtiisa la weeraray waxaana uu duqeeyay fariisimo xoutiyiinta ku leeyihiin gobolka Xudayda kuwaasi oo Sacuudiga uu sheegayo in loo adeegsanayay qatar gelinta isu socodka maraakiibta. Sacuudiga ayaa sidoo kale dhawaan ku dhawaaqay samaynta isbahaysi difaaca dhanka badda oo loogu talagalay ilaalinta xorriyadda isu socodka maraakiibta gooshaysa marin biyoodka Bab al-Mandab. isbahaysigan waxaa xubno ka ah dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Yemen, Kuwait, Oman, Jordan, Sudan, Morocco, Soomaaliya, Djibouti, Maldives, Bangladesh iyo sidoo kale New Zealand. waa hagaag bal markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay xiisadaha kale ee colaadeed ee bariga dhexe ka jira. taliyaha ciidamada dhulka ee militariga Iran Sareeye Guuto Cali Janshahi ayaa sheegay in ciidamada Iran ay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo qataraha cadawga isla markaana ay ku jiraan heegan dagaal oo buuxa. Janshahi ayaa carabka ku adkeeyay in Iran ay jawaab adag oo wax ku ool ah ka bixin doonto talaabo kasta oo cadawga uu ku qaado dalka. Ali Janshahi ayaa sidoo kale digniin waxa uu diray ciidamada Mareykanka isagoo sheegaya in Iran aysan ogolaan doonin in askari Amerikaan ah uu soo galo dhulkeeda. askari kasta oo Mareykan ah oo cag soo dhiga dhulkeena si adag ayaan uga hortagi doonaa ayuu yiri taliyuhu. taliyaha intaasi ku daray in ciidamada Iran ay si joogto ah ula socdaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo qataraha jira isla markaasna ay si buuxda ugu diyaarsan yihiin xaalad kasta oo dagaal. wararka Iran qusaya aynu ku sii soconay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in Tehran iyo Mareykanku ay fariimo isdhaafsanayaan iyadoo loo sii marayo dhinacyada dhexdhexaadinta balse aan xilligan jirin wadahadal toos ah oo u dhexeeya labadan dhinac. Araghchi ayaa xusay in fariimaha la isku dhaafsanayo aan lagu tilmaami karin wadaxaajood rasmi ah isagoo xusay in dhexdhexaadiyaashu ay ka shaqaynayaan sidii loo heli lahaa jawi ku habboon dib u bilaabidda wadahadallada. aragtidayada wadahadallada dib looma bilaabi karo ilaa Mareykanku joojiyo jebinta heshiiska is-afgaradka uu ka noqdo tallaabadaasi ayuu hadalkiisa ku daray Araghchi. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran ayaa sidoo kale sheegay in wadahadallada Iran iyo saldanada Oman ee ku saabsan dejinta marin badeed oo cusub oo laga sameeyo marin biyoodka Hormuz ay si wanaagsan u socdaan isla markaasna ay marayaan heerarkoodii ugu dambeeyay. ku nuuxnuuxsaday in marinadii hore ee maraakiibta ee Hormuz lagu bedeli doono marino cusub oo qayb ka ah wadahadallada ay Iran la leedahay saldanada Oman. waxaana uu tilmaamay in khubaradu xilligan ay ka shaqaynayaan qariiradaha la xiriira marinadan cusub. Araghchi ayaa caddeeyay in heshiis lala gaara saldanada Oman aanu macnihiisu ahayn in dib loo furayo marin biyoodka Hormuz. waa tahay haatana war weyn oo Israel ka soo baxay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu qiray ama sheegay in Israel ay diiday qorshaha 15 qodob ka kooban ee uu soo bandhigay waxa loogu yeero golaha nabadda ee ku saabsan hubka dhigista kooxda Hamas ee reer Gaza isagoo meesha ka saaray wararka sheegaya in Israel ay aqbashay qorshaha Mareykanku uu taageerayo. waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo
Israel way diiday dukumentiga 15 qodob ka kooban ayuu Netanyahu ka sheegay bilowgii shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada Israel ee maanta qabsoomay. golaha nabadda ee madax u yahay Trump ayaa isku dayaya inuu horay u dhaqaajiyo qorshihiisa ku saabsan Gaza dagaalka kadib kaasi oo Hamas ay aqbashay. Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israel aysan ka bixi doonin Gaza ilaa Hamas si buuxda hubka looga dhigo, isagoo carabka ku adkeeyay in hubka dhigistu ay tahay inay ku jirto dhammaan hubka culus iyo kuwa fudud oo laga qaadayo kooxda reer Gaza. golaha ammaanka Israa'iil ayaa goor sii horeysay waxa uu ogolaaday in ciidamada caalamiga ee xasilintu ay galaan Gaza si ay hubka uga dhigaan Hamas una maamulaan dhulkaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay Mareykanka kala hadli doonto tabashooyinkeeda ay ka qabto qorshahan, isla markaasna ciidamada Israa'iil ay sii wadi doonaan ka hortagga sida hadalka uu yiri qataraha amni. Waxaa sidoo kale uu ku celiyay inuusan aqbali doonin dhismaha dowlad Falastiiniya oo laga yagleelo Gaza iyo weliba daanta galbeed ee la haysto. waa hagaag bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta. waddanka Suuriya laba taangi iyo 3 gaari oo kuwa military ayaa galay deegaanka Samadaniya ee dalka Suuriya halkaasi oo ay roonda ka sameeyeen koorinta aysan saacad kadib dib uga laaban saldhig Israel ay leedahay oo ay ka yimaadeen horaantii. ciidamada Israel ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay burburiyeen dhul beereedyo, daaqsimeedyo iyo qaybo ka mid ah kaabayaasha deegaankaasi. Israel ayaa tallaabooyinkan waxay ku sheegtay kuwo amni oo looga hortagayo walxaha qarxa sida hadalka loo dhigay cabsi ka qabto inay halkaasi dhigaan Hezbollah amaba Iran sida hadalka ay u dhigtay. colaadda Ukraine iyo Ruushka. ciidamada Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay weerar ku qaadeen kaabayaasha dekedaha Ukraine ee ku yaala badda madow sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. wasaaradda ayaa daboolka ka qaaday in weerarada lagu beegsaday xarumo lagu kaydiyo shidaalka oo ay sheegtay in loo adeegsanayay danaha ciidamada Ukraine. sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda, xarumaha la beegsaday waxay ku yaalaan dekedaha Odessa, Jaromorski iyo sidoo kale deegaanada Beleri iyo Novo Beliari oo ku dhow magaalada Odessa. waa hagaag wararkaasna intaas aynu kaga gudubno dhanka Syria. haddii aynu eegno war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in Ruushka iyo Syria heshiisyo ay ka gaareen dekedaha iyo saldhigyada military ee ku yaala xeebaha waddanka Syria oo Ruushka ciidankiisu in muddo ay gacanta ku hayeen. waxaana la sheegayaa ugu yaraan mid ka mid ah garoomada diyaaradaha, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Hamamim oo ah saldhig military oo Ruushku ay gacanta ku hayeen, iyo dekeda Dartus in la sheegayo in lagu wareejinayo dowladda waddanka Syria. warkan oo faahfaahsan barnaamijka wararka caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaanu goodbaynaa xubinta falanqaynta oo nagu soo wajahan ee aan ku eegi doono xaaladaha ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo warkan cusub ee Netanyahu iyo Israel ka soo baxay. balse marka hore aynu ku hakanno qadar xayeysiin ah. dugsiga casriga ah ee Daarul Hijra Islamic Online waxa uu kugu bishaaranayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto Quraanka Kariimka, higaada iyo culumta shareecada. kama marna luqadda Carabiga iyo tarbiyada awlaadda. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaga muuqda. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Asia, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS. eBesa goob kasta iyo goor kasta. soo dhawaada markaa daawadayaal isku soo noqod wanaagsan. weli waxaad la socotaan barnaamijka wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanaya isugaasheena koowaad iyo labaad. barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo Telegramka. idinkoo warar degdeg ah
macluumaadyo kale iyo faallooyin ka akhrisan kara uu ka heli karaa bogga aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno hbn oo ka dhigo weelkaaga wararka. waagaag aynu markan xubinta falanqaynta ee barnaamijka ugu dambeysay xagga mawliid u weecano. mawliid intaynan u gudbin arrimaha ku saabsan xiisada Iiraan iyo Mareykanka iyo waxyaabaha kasoo cusboonaaday, bal aynu u weecano xagga go'aanka culus ee Israel iyo Netanyahu kasoo yeeray ee ku aadan inaysan aqbalaynin oo aysan ogoleyn qorshaha Trump ee Gaza ku saabsan. bal muxuu ka macno yahay go'aankan? nimca horta warkan waa war aad u weyn. saacadihii u dambeeyey wakaaladaha wararka iyo telefishinada iyo raadiyaasha iyo sidoo kale baraha bulshada ayuu saaran yahay. waana war weyn oo runtii isbedel weyn ku keeni kara xiriirka Mareykanka iyo Israel, inkastoo la aaminsan yahay in mar walba ulya diirkeed ay yihiin Mareykanka iyo Israel, laakiin qorshihii dhammaa ee madaxweynaha Mareykanka uu ka shaqaynayay ayaa waxa la aaminsan yahay hadda in Netanyahu laad uu ku dhuftay sida qobrada ay ku macnaynayso. waxaan soo xiganaynaa khabiirka weyn Marwan Bishara oo Falastiiniya telefishinka Al Jazeera ka mid ah qobrada sida weyn arrimahan uga faalloota. wuxuu soo xigtay isaga guddiisa wasiirkii hore ama xogayihii hore amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka Henry Kissinger. wuxuu leeyahay Israel ma leh istiraatiijiyad siyaasadeed oo dhanka dibadda ah, laakiin waxay leedahay siyaasad gudaha ah. maxaa loola jeedaa marka? Marwan Bishara wuxuu ku macnaynayaa go'aankan ka soo baxay Netanyahu inuu la xiriiro doorashada Israel ee dhici doonta, si Netanyahu loogu aqoonsado nin balaaya ka dhacday oo haliyey ah oo isla markaasna isku taagi kara madaxweynaha Mareykanka, diidi kara go'aankan Trump ka soo baxay in gudaha Israel loo aqoonsado nin haliyey ah oo ka hor imaan kara madaxweynaha Mareykanka, isla markaasna diidi kara waxa uu doonayo. waayo waynu ognahay Israel muhiimad weyn ayay u leedahay Mareykanka Gaza. Marwan Bishara wuxuu kaloo soo xiganayaa hadallo uu hadda ka hor ku dooday Netanyahu dhowr mar. waxaa ka mid ah Rafah oo maamulkii Joe Biden